daawada haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqato janaalkeena xigmadyahan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto sidoo kalena aad furato gambeelka si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee mar waliba hela muuqaaladeena cusub sidoo kale ha ilmaamin inaad like share iyo comment aad inoo siiso muuqaalkan mahadsanid weligaana guulayso xilli hadda laga joogo dhowr sano baadariyaal reer galbeed ah sidoo kalena haysta diinta kiristaanka ayaa kulmay kuna heshiiyey in ay soo raadiyaan qaladaad ku jira qur-aanka kariimka si ay dadka haysta diintooda ugu caddeeyaan inay diinta islaamka ahayn diin sax ah subxaan allah waxayna bilaabeen inay rogrogaan kitaabka qur-aanka kariimka ilaa ay ka soo gaaraan aayadda odhanaysa حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ومعن هيدو يهي إلى أي كيمادين وادي قرانشو آياتري قرانشو يقال قريهينا يين إذن ججبين سليمان يعين كيس إيقون درين سنين halkaas ay dul istaageen iyagoo farxaya una maleeya jaahilnimadooda darteed inuu qalad ku jiro qur-aanka ilaahay subxaan allah iyagoo odhanaya adeegsiga kelimada yaxtimanakum oo burburin ah sax ma aha sababtoo ah waxaa la burburin karaa dhalooyinka iyo waxyaabaha adag ee suuragal ma aha in la burburiyo quraansho ka samaysan hilib iyo dhiig waxay iska dhaadhiciyeen in halkaas uu qalad ka jiro siday iyagu la tahay waxay si dhaqsiya ugu faafiyeen baaritaankooda dunida oo dhan mana jirin caalim muslim ah oo arrintaasi ka hadla maadaama aan horay arrinkan loogu samaynin wax baaritaan ah balse waxaa soo baxay aqoonyahan reer Australia ah kaasi oo dhowr jeer baaritaano badan ku sameeyay cayayaanada aadka u yaryar wuxuuna caddeeyay arrin ka yaabisay afkana xirtay dhammaan baadariyadii u ololeynayay in ay shaki ku abuuraan saxnimada diinta islaamka iyo kitaabka qur-aanka kariimka wuxuu sheegay in noolahan quraanshada ah uu jirkiisu ka samaysan yahay dhalooyin tiro badan wuxuuna intaa ku daray in adeegsiga burburin loo isticmaalo quraanshadana uu yahay mid sax ah maadaama ay ka samaysan tahay dhalo xaqiiqna ay tahay siduu caddeeyay qur-aanka kariimka kuna habboon tahay 100% sidaa darteed mucjisadan uu arkay iyo tijaabadan uu xaqiijiyay awgeed aqoonyahankaas ayaa soo islaamay dunidana u soo bandhigay islaamnimadiisa allahu akbar ilaahay cidduu doono ayuu ku soo hanuuniyaa jidkiisa toosan sababna uga dhigaa shayguu doono hadda walaal muuqaalka intaadan ka bixin waxaan kaa codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay kanaalka inaad subscribe noo saarto muuqaalkana aad like noo siiso waad ku maansantahay dabcan daawashada muuqaalkeena muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono وأوالكن عبد الرزاق عبد الله وذكر دافع سيدا إن بتقليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.